رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. kusoo dhawaada walaalayaal xalaqadeennii 11aad ee barnaamijka tababarka nolosha guurka. waxaanu bilownay xalaqadihii labada xalaqo ee aan horey usoo dhammeynay sheeko ka hadlaysay tillaabooyinka guurka. tillaabada koowaad oo ahayd doonashada gabadha. ciwaanka xalaqadeennan maanta waxaa waaye alcaqdu, heshiiska nikaaxa ama meherka waxaanu dhahno. maxaa dhacayo inta lagu guda jiro caqdiga? sidee u dhacaya caqdiga? waa maxay arkaanta caqdiga? maxaa ka dhashanaya caqdigaas? maxaa u bannaan wiilka gabadhan soo doontay iyo gabadhaba waxa u bannaan? waa sheekooyin noocaas oo kaleeta ah waanu ka sheekayn doonaa caqdiga. ilaahay hadoo ka raali noqdo. inta aanan ogalin sheekada ka hor insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahaa inaan ka sheekeeyo mowduuca istikhaarada. dadka inta badan marka ay maxaa la dhahay gabadhii doontaan ama maxaa la gabadhii laftirkeeda marka lasoo doonto ee laisbarto laisfahmo kadib la heshiiyo kadib akhiiran waxaa la dhahaa u kaadiya bal aan yara maxaa la istikhaaraysanay. istikhaaraduna waa amar sharci ah oo sax ah oo jiro, laakiin runtaa waxay tahay in meelo loo adeegsado iyo qaab loo adeegsado ay leedahay. nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu dhahay maa khaaba man istakhaara walaa nadima man istashaara. waxaa laga maarmaan ah in aad midaysid istikhaarada iyo istishaarada. na istikhaaraysatid kadibna la tashi samaysid. istikhaaro keligeed ma nagu filno. haddii tusaale ahaan oo kale wiilku u imaado gabadhay soo doonto, haddii aad dhahdid waan soo istikhaaranayaa u kaadi adoon la tashi samaynin, adoo baaritaan samaynin, adoo dad weydiinin, adoo soo baarin wiilkan wuxuu u yahay, amarkaas maahan mid saxsan. istikhaarada aan la tashiga lahayn, istishaarada wadanin maahan mid saxsan. iyo istishaaro la tashi oo istikhaaro la-aan ah ayadani ma fiicna. ayadani sidaasaas runta sida saxdaha waxay tahay inaan kulmino labadoodaba, istikhaarada iyo istishaarada. hadda sidee waaye istikhaarada sharciga ah ee saxda ah? aniga tusaalahaan oo kale marka aan la tashi sameeyey oo waxaan lahay soo wareystay oo soo ogaaday, baaritaan ku sameeyey wiilkan, kadib aan ogaaday oo go-aansaday in wiilkan uu u qalmo gabadhaydina aan maxaa la dhahay weydiiyey iyaduna dhahday wiilkan waa ii qalmaa waan rabaa. markaas waaye marka aan sameynayo istikhaarada. sidee marka u sameynaya istikhaarada? dhageysta walaalayaal xadiiska rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka uu ka hadlaya istikhaarada waxa uu ka yiri. jaabir bin cabdullaahi radi allahu canhu xadiiska wareedinaya wuxuu yiri rasuulka sal alay wasalam wuxuu ahaa mid ina baro istikhaarada umuura kulli, amarada oo dhan istikhaarada inuu midna baro istikhaarada ayuu ahaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. wuxuu yiri rasuulka sal alay wasalam midkiin hadduu amar hamiyo falyarkac rakcatayni min gayri alfariida, laba rakaco ha tukado oo ha rukuuc. midda koowaad qodobka koowaad wuxuu yahay ila fiiriya meeshaan, idaa hama axadukum amra bilamri, haddii midkiin amar hamiyo markaad adiga wixii soo baartay eed maxaa la dhahay go-aansatay, marka aad maxaa la dhahay faa'iidada iyo khasaaraha kaaga imaadaya aad isla xalaleeshay eed baaritaan dheeraada ku samaysay, wuxuu raba ha ahaado waxaas brograamkaas aad rabtid, ha ahaado maxaa la dhahay inaad safartid, inaad wax baratid, inaad wax gadatid, inaad wax gadid, inaad guursatid, wax alaala markii aad wixii baartid eed baaritaan ku samaysid eed ka soo hamisid oo soo baartid kadib falyarkac rakcateen, yaa rukuucaya labadaas rakca. sida aad maqlaysid qofkaas istikhaarada sameynaya oo amarkaas oo haysto waa mid karkacaya. istikhaarada
asalkeega waxay tahay adiga inaad rukuucdid laba rakaco adiga inaad tukatid labada rakaco waxa dhacdo mararka qaar in dadka qaar ay la xiriiraan sheekh kamida sheekhayaasha ay ku dhahan sheekh fadlan waxa rabaa inaan heblaayo guursado bal fadlan ii samee maxaa la istikhaaro oo isoo istikhaarey ama waxa laga yaabaa inay gabar ku dhahdo saaxiibteed ama maxaa la macalinkeeda ama sheekhayaasha kamid ah ama qof ay ku kalsoontaa wanaageeda maxaa la dhahay isoo istikhaarey walaal waxa rabaa barnaamij inaan danan leeyahay isoo istikhaarey xadiisku wuxuu leeyahay idaa hama axadukum bilamri falyarkac rakcatayni min gayri alfariida falyarkac waxaa rukuucaya labadaas ragcadood huwa adiga qofkaas barnaamijka leh dhib ma lahan inaa kuu duceeyo ama walaalkaaga uu kuu duceeyo ama eedada ama qof aad wanaagiisa maxaa lahay aad ku tabaysid ii duceey aad dhahdi ama sheekha ii duceey aad dhahdid taas dhib ma lahan laakiin istikhaarada asalkeeda wuxuu yahay cibaado waaye adiga ayaana la rabaa inaad tukatid haddii aad tukatidna adiga ajirka ku helayo istikhaaradaas haddaadan tukanin oo qof kale ku tukanin qofkas tukada ajirka helayo adiga ku duceynayo marka asalka istikhaarada wuxuu yahay inaad adiga laba rakacadood rukuucdid oo adiga laba rakacadood tukatid waxa laga yaabaa dadka qaar inay dhahaan aniga xoogo ilaahay baan ka fogaay xiriirkayga adag aniga ilaahay baan ka gaabiyay xiriirka ilaahay walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala wuuna sugaya anaga oo idil meeqaa habeen oo ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa inoo soo fidiyey asaga uu sugaayo naga sugaayo in codkeen oo maqlo amaba maxaa lahay arko anagoo gacmeena kor u taagano asaga baryana si kastoo ilaahay aa uga fog tahay si kastoo ilaahay aa uga gaabisay ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku sugayaa maalin un inaad u toobad keentid waxaana wax aan dhici karin in ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay aa u gargaraacdid iridda kadibna ilaahay ku soo celiyo marka xadiisku wuxuu leeyahay إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي أو عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني أو معاشي أو عاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به كذب رسولك صلى الله عليه وسلم وحير حديث أيوة مقعاوية حديثك وحولي إمام مسلم وعند الترمذي وعند النسائي حديثك وكاساسي waataasa istikhaarada sharciga hadda maxaa dhacaya istikhaarada kadib dadka qaar waxay dhahaan waxaa sugayaa aniga riyo haddaan arko riyo wanaagsan oo dhahayso gabadhan way fiican tahay kadib waa guursanaya haddii aan arko riyo dhahayso gabadhan ma fiicno ma guursanaya gabdhaha qaar markay istikhaarada sameeyaan waxay sameeyaan habeenkii markii hurdo waxay arkaysaa riyo xun tusaalahaan oo kale inay riyo xun inta aragto maxaa lahay waxyaabo xun aragto kadib ay iska soo go-aansato ninkan in lawaaba cirfiid iga wad guursan maaya kan runtaa waxay tahay in cilaaqad iyo xiriir ee la leedahay istikhaarada riyada aysan jirin waxba kama gelin markaad istikhaaraysatinna ma sugaysid riyadaada sugaynin wax kalaana sugaynin wax aad sugaysid markaad istikhaaraysata maahan shardina maahan markaad istikhaaraysanaysid inaad tukatid salaada kadib cinda salaada maqribka ama salaada duhurka ama meelahaas kadib qasab maahan inaad tukatid istikhaaradu waxaa waaye adiga waxaad ku duceysanaysaa ducadaas salaada kadib iyo salaadaba gudaheedaba labadaas ragcadood aad tukanaysid gudaheeda labadaas ragca kadibna ducadaas aad akhrisay ilaahay subxaana watacaala aad u duceysatay ilaahay subxaana watacaala amarkaas kugu fududeynaya ama ilaahay laga yaabo inuu culeys kaa saaro amarkaas adina markasta ajir ayaad ku helaysaa ducadaas aad duceysatay wax xiriira ee la leedahay riyado istikhaarada ma jirto meeqaa qoys u imaaday wiil gabadhooda guursan rabo isfahmeen si kasta u heshiiyeen wax allaale wixii laisku heshiilaya lagu heshiiyey wiilkuna aad u wanaagsanay ku sigtan inay waafaqaan oo gabadha u meeriyaan kadibna ay dhaheen u kaadiya balaan istikhaarane kadib markii istikhaaraystay maamadii ama qofkii barnaamijkaas ku jira istikhaarada habeenkii maxaa la markay jiifata riyo xun inta aragtay maxaa la kadib tiri wiilkan ma rabno anaga ma guursanayno naga dhaafa
gabadheedna ku darsameen waana la burburiyay caqdigii iyo maxaa la heshiiska la gali rabay oo gabadhaas in wiilka lagu daray meeqaa wiil maxaa la gabdho badan inta la heshiiyey kadib markii uu guursan rabay gabadhii intuu yiri waa istiqaaraysanaya habeenkii maxaa la riya xun inta arkay uu yiri gabadhaas aniga ma rabo istiqaarada waxaa waaye duco istishaarada la tashiga kadib aad sameynaysa kadibna aad amarka ku dhaqaaqaysa ima inuu ilaahay ku fududeeyo oo amarkii dhaco oo ima inuu ilaahay culays ka saaro amarkii dhicin waxba kama gelin maxaa la riyada istiqaarada dadka qaar waxay sugaan in ilaahay sadriga in lay sharxu sadri ama sadriga maxaa la laga qabto inta taasuna wax kama gelin istiqaarada qof wuxuu ku leeyahay wallahi beerka laga qabtay maanta maxaa la wallahi maanta maxaa la waa farxtinaan dareema istiqaaradaas waxba kama gelin farxtinta aad dareemaysid ama maxaa la beerka laga qabanayo istiqaarada waa duco adiga aad salaad inta tukato ku duceysanaysid kadibna aad amarka ku dhaqaaqaysid ima inuu amarkaas dhaco oo dhamaado oo ima inuu dhici waayo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala culays ka saaro salaada tuko istiqaarada adiga hasugin maxaa la dhahay riyo habeenkii ku imaato hasugin in maxaa la sharxu sadri lagu sameeyo hasugin waxyaabo kaleeto amarkii dhankiisa aad ilaahay inuu subxaanahu wa ta'aala ima inuu ku fududeeyo oo ima inuu ilaahay culays ka saaro amarkaas taas waaye istiqaarada sharciga ee walaalayaal hadda waxaa jirto qaabab istiqaare ah oo qaldan oo dadkeena ku dhex saacsan gabdhaheena ama wiilasheena ama dadkeena qaar sameeyo istiqaarada noocaas wayna haboon tahay in aan maxaa la dhahay ka iska ilaalino istiqaaradaas waana idin sheegi doonaa insha Allah ta'ala laakiin goosgooska kadib